muusaan isku reernahay ama hab qabiil ayay ku biireen iyagoo muuse xoojinaya oo ay waxaanu bariyahan dambe caadeysanay inuu ogeyn xisbiyada labada xisbiye kulmiye iyo wadani iyo reer hebel in lagu ololeeyo taasina wax ka soo horjeeda waxaynu xisbiyada u samaysanay waxaynu u samaysanay inuu qabyaalada iyo qabiilka kaga baxno oo saddexda xisbi dalka ay uga soo baxaan xildhibaanada ama golo deegaan ha noqdaan ama golo baarlamaan ha noqdaan waxaynu hore u ogeyn maayarka Gabiley iyo maayarka Berbera shirkii uu Muuse u qabtay ee ay ku taageereen Muuse Biixi ee ay ugu qaadhameen min $20,000 isku qoreen iyagoo magaalooyinkii loo igmaday baahida taalla iyo ma garanaysaa dhan kasta ay dad masaakiin ku nool yihiin oo baahan wax qabad ay magaalooyinkooda dayacan yihiin oo hawshii loo igmaday ay dayacan tahay ayuu nin waliba $20,000 oo dadka ka urursado cashuurtii dadka caanaleeyda iyo islaamaha tamadhadii laga soo ururiyay uu Muusaan ayaan ugu qaadhaamayaa inuu ku soo baxo madaxweyne noqdo maantana waxay raaciyeen xisbigii ay ka soo baxeen ee tacab ka galay ee u cid ayaanu ka tagnay waxaanu ku biiray kulmiye haddaba waa okay xorriyadaada iska leh xisbiguna wuxuu leeyahay xubinimadiisa iyo cidii uu ku bedelanayay isaga xaq u leh sida ay mas'uuliyiintu hore u sheegeen iga horeeyay waxa halkan inoogu diyaara raggii noo bedeli lahaa nin kasta oo xisbiga iskaga tagay oo ku biira kulmiye xilalkiina wax noo qaban doona nimankan waxa kamid ah Jimcaale xildhibaan Jimcaale halkan horteeda taagan waxa kamid ah Mustafa Xasan Faas oo Berbera kuwii Gabiley ayagana noo jooga nin waliba xaqiisa aanu siinayna raggii ku soo xigay nimankan ka baxay xisbiga sharciga jabiyay waxaanu ku wareejinaa nin walba xilkiisii oo xaq u lahaa madaxweynaha sharafta leh iyo xukuumadana waxaanu leenahay maanta madaxweyne dastuurka aad uga tagayso dalka iyo sharciga dalka uga tagayso mar haddii aad maanta record jabisay oo tiriis soo sharix maayo oo waxaan wareejinayaa kursigiyo si sharci iyo dimuqraadiyada loogu tartamo waxaanu leenahay sharci sidaas oo kale dimuqraadiyana wadanka ugu tag arrintanna waa in la taageeraa oo xeerka la jabiyay sida uu sheegay xeer foodhiin faqradiisa 11 iyo 4 waa in 10kii sanadood marka ay xisbiyada la soo doortay 6 bilood ugu dambaysa ayuunbaa xildhibaanku uu ka bixi karaa xisbigu ka soo baxay oo sidoo sharcigeenu sheegayo marka imikana de 6 sano dhuuba harsan 4 sano baa dhacday intii la soo doortay xisbiyada 6 sano maadaama ay dhacdayna ninka maanta yiri waxaan ka baxay xisbigii aan ka soo baxay wuxuu lumiyay xubinnimadii xilkii xisbiga u hayay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.